soo dhawaada mar kale muuqaalkan maanta waxaan ugu hadli doonaa qaabka aad u horumarin karto YouTube channel-kaaga. Waan hubaa inaad leedahay channel amaba aad danaynaysaa inaad haatan ku soo biirto, balse waxaad ka fikiraysaa sidii aad ku heli lahayd subscribers amaba dad rukunta channel-kaaga. Halkan maanta waxaan kuugu la wadaagi doonaa qaabab amaba wadooyin aad ku heli karto subscribe si xaqiiq ah. Haddii aad muuqaalkan dhammaysato fahantana waxyaabahan ka hadlayo oo dhan, anigoo Cusmaan ayaa ku ballan qaadaya inaad heli doonto subscribe iyo views labadaba. Maanta laga bilaabana waxaan rajayn doonaa haddii aad ahaan jirtay qof commentiyada muuqaalada la soo dhigay YouTube-ka hoostooda ku qori jiray isaar subscribe, anuma ku saaraya waxyaabahaas. Insha Allah ta'ala muuqaalkan adiga ayaan kuugu talagalay. Balse ugu horeyn waxaan kuu sheegayaa haddii aad tahay qof ku cusub YouTube channel amaba maanta bilaabay channel, waxa xaqiiq ah hubaal ah inaadan si dhaqsi ah aadan ku helaynin dad ku xirnaada amaba community ku xirnaada channel-kaaga ama waxyaabahan loo yaqaan subscribe, yacni si fudud kuma helaysid. Waa markii uu cusub yahay channel-kaaga, waan hubaa waxaad tahay qof dadaalaya, balse dadaalkaaga maalmaha ugu horeeya wuxuu noqon doonaa dadaal rafaad ah. Yacni waad rafaadaysaa, waxyaabo badan ayaa niyadaada ku soo dhici doona kuwaasoo ah dadkan may subscribe ku saaraan, Soomaalidu waa xaasidiin, waxyaabahaas oo dhan ayaa marka ugu horeysa ee channel bilaabayso maskaxdaada ku soo dhici doona. balse waxyaabahaas oo dhan inaad fiiriso looma baahna. Muhiimadda aad u soo gashay ee ah inaad dad wax u faa'iideyso amaba aad entertainment u samayso dadka, taas ayaa mar walba muhiima inaad eegto. Halkan maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa marka wadooyin qodobooyin kala duwan oo aad ku horumarin karto channel-kaaga. Aan ku bilaabno qodobka koobaad muhiimkan ah wuxuu yahay amaba aan kuugu sheegayaa habka aad muuqaalada title-kooda u qorayso ha ahaato mid gaaban aad u qurux badan. yacni mar walba muuqaal ayaad soo dhigtaa YouTube-ka, magacaa doonta ayaad isaga qortaa, balse magacyadaas aad isaga qorayso badankooda ma ahan magacyo loo baahan yahay. Dhanka magac bixinta muuqaaladaada waa inay ahaataa magac aad u qurux badan, gaaban, soo jiidashana leh. Tan waxaan ula jeedaa haddii aad muuqaalkaaga u bixinayso magac amaba title, ha ahaado mid yacni la fahmi karo, aanan aad u dheeraynin, qurux badanna. Tusaalahan haddii aan title-kayga ka dhigo maanta waxaan joogaa halkaas iyo halkaas, waxaan la joogaa hebel iyo hebel. runtii title-kaas ama magac bixintaas ma ahan mid yacni dadka soo jiidanaya. waxaad u baahantaa marka inaad magac yar oo kooban lana fahmi karo dadkana soo jiidanaya. waa inaad muuqaalkaaga markii aad title ku qorayso aad ku dartaa. runtii qodobkan aad buu muhiim u yahay. halkaas haddii aan kaga gudbin qodobka koobaad, haddii aan u imaan qodobka labaad, runtii qodobkan isagana waa qodob kale oo aad u muhiima. qodobkan wuxuu yahay waxa loo yaqaano thumbnail amaba custom thumbnail. thumbnail haddii aad marka ugu horreysa maqlayso waa sawirada ka horeeya muuqaalka. yacni markii muuqaal YouTube-ka la soo dhigo waad aragtay sawir ayaa ka horeeya. sawirkaas oo haddii aad muuqaalkii daarto aadan ka dhexelaynin muuqaalkii aad daaratay, keliya wuxuu dul saaran yahay koforka amaba wejiga hore ee muuqaalka aad daawanayso. midkaas ayaa waxaa la yidhahdaa custom thumbnail amaba thumbnail. isagana wuxuu leeyahay faa'iido aad u weyn, muhiimad aad u weyn. haddii uu custom thumbnail-kaaga uu yahay mid aad u qurux badan, laga soo shaqeeyey, waqti la geliyey, waxaa jiro dad aad u fara badan oo xiiseeya sawirada aadku quruxda badan. haddii marka thumbnail-kaada qurxanaa, markaasna uu jiro qof YouTube-ka iska dhex joogay, isla markaan u arko asagoo YouTube-ka iska dhex jooga sawirkaagii quruxda badnaa ee thumbnail-ka, qofkii markaas wuxuu ka warjirinayaa thumbnail-kan quruxda badan waxa ka dambeeyo. yacni muuqaalka ka dambeeyo ayuu doonayaa inuu wax ka ogaado. marka aad bay muhiim u tahay marka in thumbnail-kaaga uu noqdo mid aad u qurux badan. markii aad thumbnail-kaaga diyaarinaysana waa inaad daqiiqada fara badan gelisaa si markaas aad u hesho custom thumbnail aad u qurux badan. qodobkaas ayuu noqonayaa. haddii aan halkaas kaga gudbino qodobka labaad, aan u gudbino qodobka saddexaad. runtii qodobka saddexaad isagana waa qodob aad u muhiima runtii. wuxuuna noqonayaa waxa loo yaqaano tags amaba raadraac hadba saad u fahmayso. tagiskana runtii waa mid muuqaaladaada YouTube-ka ka dhigaya kuwa la heli karo markii laga raadiyo searching-ka YouTube-ka. haddii aad maanta muuqaal soo dhigto aadan ku dirin tagis, muuqaalkaagaas wuxuu la micno yahay adigoo aanan ku dirin cusbo. marka tagiska waa cusbadii muuqaalka. marka haddii aad doonayso in muuqaalkaaga mar walba helo views, waxaa qasabka uga ah muuqaal walba ee aad soo dhigayso channel-kaaga in aad ku darto tagis. tusaale kooban baan idiin soo qaadanaya channel-kan aad haatan iga daawanayso. waxaan dhihi karaa waxa keliya ay caawiyey waa tagiska. waad aragteen dadka channel-ka inta badan ku xiran inaanan sameynin custom thumbnail aad u qurux badan, title aad u qurux badan ma sameeyo inta badan, balse mida keliya aan mar walba isticmaalo kuna dadaalo waxay tahay isticmaalka tagiska. adigana waxaan kugu talinayaa marka inaad isticmaasho tagis amaba raadraac si markaas muuqaalkaagii uu mar walba uu noqdo mid la heli karo markii qofkii uu YouTube-ka searching-ka isticmaalo, si markaas muuqaalkaagii uu ugu soo baxo
halkaasna aad ku hesho in lagu daawado muuqaalkaagii. qodobka saddexaad waa qodobkaas waa tags. aad bay muhiim u tahay inaad mar walba isticmaasho una isticmaasho muuqaal walba aad soo dhigayso janaalkaaga. qodobada kale ee aan halkan ku xusi karo waxaa ka mid ah inkastoo ay aad u farbadiyiin qaabka aad janaalkaaga ku horumarin karto ama wadooyinka aad ku horumarin karto janaalkaaga, waxaan soo qaadan karaa qodobkan ah inaad muuqaal soo dhigto janaalkaaga. tusaalahan haddii aadan muuqaal soo dhigin janaalkaaga muddo 2 bil, 3 bil, 4 bil, waxaa hubaala dadkii horey kugu xirnaa janaalkaaga inaad halkaas ku weyso. marka waa muhiim marka inaad janaalkaaga xasuusnaato aadna soo dhigto muuqaalo isbuucii. haddii aadan waqti helinin xitaa inaad hal muuqaal soo dhigto, runtii aad bay u wanaagsan tahay. welibana inaad janaalkaaga mar walba muuqaal soo dhigto. qoladan youtube-ka iyagana waxay kugu caawinayaan in ay muuqaalkaagii ama janaalkaagii ay discovery ku sameeyaan, recommendation ahaan ay dad kale u tusaan. tusaale ahaan algoritmka youtube-ka siduu u shaqeeya ayaa ah qofkan hadduu yahay qof dadaalaya, iyagana qolada youtube-ka waxay sameynayaan inay ku garab qabtaan, ay muuqaaladaadii dad badan ay tusaan qaab recommendation ahaan ah. balse ka waran haddii aadan muuqaalba soo dhigaynin, marka algoritmka youtube-ka adigana sida taas ayuu kugu ilaabayaa sida aad u ilaawday janaalkaaga. marka waa muhiim inaad janaalkaaga xasuusnaato muuqaalan aad soo dhigto si markaas adigana lagu xasuusto. qodobka kale ee halkan ku xusi kara waxay tahay waa qodobo adig kugu xiran kuwan, waxay tahay inaad qurxiso muuqaaladaada. balka waran haddii muuqaalkaaga uu yahay muuqaal aad u jajabsan, codkaagiina uu yahay mid aad u jajabsan, qofkii markuu muuqaalkaagii daaro isla markiiba wuxuu dareemayaa in halkan ay wax badan ka qaldan yihiin. marka muuqaaladaada markii aad duubayso waa inaad si nadiif ah amaba HD ah u duubtaa. sidoo kalena waad aragteen qof walba style amaba waxyaabo u gooniha buu leeyahay. muuqaalkaaga style gooniya oo aad qurux badan waa inaad u editgaraysataa si markaas dadkii aad u soo jiidato. waxaa kaloona aad u muhiima in muuqaalkaaga codka saaran uu yahay yacni cod aad u nadiif ah. tusaale haddii codkaaga uu ahaa mid aad u qayli badan amaba dad ka hoos qaylinayaan amaba background noise ay hoos ka yeerayaan, runtii dadka qaar markay iPhone ugu jiro amaba dhegay ku dhegeysanayaan muuqaalkaaga, yacni qofkii aad buu u dareemayaa in noise uu halkaas ku jiro. marka haddii aad heli karto marka qalabkii aad background noise ugu saari lahayd codkaaga, waa muhiim inaad isticmaasho. midda kale aan maanta jeclahay inaan idinla wadaago waxay noqonaysaa inaad isticmaasho waxa loo yaqaano clickbait. waan hubaa ergan clickbait weli halkan kuma aanan sharaxin, balse clickbait-ka waa wax la isticmaalo ay dadka youtuberada qaarkood isticmaalaan. clickbait-kana waxaan u qaybin karnaa 2 qaab. mid custom thumbnail-kaaga inaad ka dhigto clickbait amaba title-kaaga in aad ka dhigto clickbait. clickbait horta haddii aan sharaxaad kooban ka bixi wuxuu yahay in maxay ahayd tole dadkii aad yara qalado, in title-kaagii aad yara wax ka bedesho, aad yacni waxoogaa yar been ah ku darto. sidoo kalena custom thumbnail-kaagana aad isagana ka dhigto clickbait. sida aad ka fahmaysa clickbait, click waa fahmaysaan waa qofkii inuu wixii click gareeyo kadibna halkaas aad ka hesho views. clickbait marka qolada youtube-ka waxaa la yiraahdaa way yara ogol yihiin mana yara ogola, balse waxaa jiro janaalo aad u waaweyn oo maantadan haysto million subscribers oo weli isticmaalo clickbait. clickbait-ka sida aan horeba kugu soo sheegay wuxuu noqon karaa 2 in custom thumbnail-kaaga aad ka dhigto clickbait, yacni muuqaalkaagii wuxuu ku saabsiisanaa iyo custom thumbnail-kaaga inay kala duwanaadaan oo custom thumbnail-kaaga aad ka dhigto wax been ah. tusaale ahaan haatan muuqaalkan aad daawanayso wuxuu ku saabsiisan yahay sida aad ku horumarin karto janaalkaaga. waxaan marka ka dhigayaa custom thumbnail-kiisa waxaan soo iibsaday waxyaabahaas. marka qofkii daneynaya muuqaalkaaga wuxuu ku qasbanaanayaa inuu kligareeyo, kadibna muuqaalkii markii uu arkana sawirkii ka horreeyay muuqaalka iyo muuqaalkii waxay noqonayaan 2 kala duwan. qaabkaasna waad isticmaali kartaa haddii aad doonayso, balse kugulama talinayo inaad midaad samayso inaad dadka misleading ku samayso ama aad been u sheegto. runtii waa wax laga wanaagsan yahay. qodobkan marar badan ayaan rabay inaan ka yar aamuso, balse runtii waa qodob isagana meesha ku jira. marka qaabkan aan kuu soo sheegay maanta ayaad horumarin kartaa janaalkaaga haddii aad si dhaba u fahanto muuqaalkan ama waxyaabihii aan ka hadlay oo dhan, yacni si dhaba u fahanto una isticmaasho. waxaan hubaa inuu janaalkaaga uu heli doono dad daawada iyo dad subscribe garaya labadaba. waxaana kaloo jira qodobo aad u fara badan oo adiga kugu xiran oo aadna ku horumarin karto janaalkaaga haddii aan waxyaabo kooban ka soo qaato. tusaalaan haddii aad tahay qof soo dhiga janaalkiisa cod sida aniga haatan oo kale, waxaad samayn kartaa codkaaga ayaad waxaad ka dhigi kartaa mid aad u nadiifa, qurux badan, wax wasaq aysan ku jirin. markaad muuqaal duubaysana amaba aad hadlaysana yacni maahan inaad samayso sida qof hurdaayo oo kale, waa inaad qof nool iska dhigtaa markaad cod duubayso. qodobada kale iyagana muhiimka waxaa ka mid ah in dadka daawadayaashaada ah aad xiriir la samayso, yacni haddii aad awoodo inaad commentiyadooda loof u saarto, haddii aad rebelay u dhigi karto inaad rebelay u dhahdo, iyagana runtii waa waxyaaba aad u muhiima. sababtoo qofkii soo comment gariyay muuqaalada wuxuu dareemayaa in qofkan uu kaargareynayo daawadayaashiisa iyo commentyaashiisa intaba.
wayna jiri karaan waxyaabo kale oo aad u fara badan oo aad ku horumarin karto YouTube channelkaaga haddii ay jiraan waxaad samayn kartaa inaad commentiga muuqaalkan inoogu soo qorto waxyaabihii aan ka tegay iyo waxyaabihii aan qalday intaba qaybta commentiga videogan ayaad nagu xasuusin kartaa qodobadii aan maanta kuu soo sheegayna haddii aad si dhab u raacdo waxaan kuu ballan qaadayaa in channelkaaga uu horumari doono waxyaabihii aan kuu soo sheegay qaarkoodna waxaa jira muuqaalo aan kasoo diyaariyey oo aad ka heli karto channelkan aad haatan iga daawanayso sida custom thumbnail loo sameeyo tags waxyaabahaas oo dhan waxaa jira muuqaalo aan kasoo diyaariyey oo kala duwan oo aad u badan channelka ayaad ku laaban kartaa amaba descriptionka videogan ayaan kuu soo dhigi doonaa waxyaabihii aan halkan uga hadlay haddii ay jireen muuqaalo aan kasoo diyaariyey muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay waan kaa mahad inaad daawashada aad daawatay muuqaalkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh